السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. Muuqaalkan waxaan kusoo gudbinaynaa sida loo baaro haddii aad la kulantid cilad marka aad sameynaysid installationska, sidoo kale marka aad sameynaysid software update, iyo sida loo cilad bixiyo haddii aad la kulantid ciladaha noocaas oo kale. Ugu horeyn waxaad rabtaa tusaale ahaan in aad ku install gareysid software Kali Linuxka. tusaale haddii aan dhahno let's say apt install waxaan dhahday Python. Okay, cilad noocan oo kale la kulantay. Sidoo kale waxaad dhahday bal update aan u diro, ayadana sidoo kale waxaad aragtay in uusan update-kii qaadanaynin oo waxaad aragtay in ay wax khaldan yihiin. mar allaale markii aad la kulantid ciladaha noocan oo kale oo hadda halkan wuxuu ku sheegayaa error oo ay la macno tahay in uusan gaari karin, wuxuu ku leeyahay couldn't resolve http.kali ma gaari karo. sidoo kale halkan wuxuu ku tilmaamay inuu error uu jiro oo wuxuu ku leeyahay ma aragtay cilada jirto has no installation candidate. waxaan u baahanahay in aan xalino ciladaha sidaan oo kale maxaa yeelay wixii aan dalbanay mana loo sameynin, dalabkeeni lagama jawaabin. marka ugu horeyso marka intee ka bilaabaysaa oo maxaad sameynaysaa? step ugu horeeyo waxaad fiirinaysaa waa waxa ugu hore aad sameynaysid internet connection ma haystaa, laana codsiga aad dirsatay waxaa looga jawaabi karaa in aad connection haysatid oo kaliya. marka hubi horta in aad internet connection haysatid. haddii aad halkan kor fiirisid waxaa ku muuqanayso in aad internet haysatid, laakiin tan oo kaliya laguma ogaan karo, lagumana xaqiijin karo. talaabada ugu horeysa aad sameynaysid maxay tahay? waxaad leedahay waxaan isku dayayaa in aan bingareeyo gateway-gayga. gateway-gana waa halka aan network aan uga sii baxo ama halka aan u maro albaabka network-gayga. si aan u sameeyo waxaan leeyahay horta IP address-kayga muxuu yahay, then IP address-kayga waa kan, then gateway-gayga saan u ogaado marka waxaan leeyahay route-n, then wuxuu ii sheegayaa inuu gateway-gayga uu kan yahay. waxaan leeyahay haddaan gateway-gayga gaari karo waxaan awoodaa in aan sidoo kale network-ga banaankana aan gaaro. marka wuxuu leeyahay 192.168.99.57 waxaan leeyahay bing. ujeedada aan u bingareynayo gateway-gayga wuxuu yahay bal inaan ogaado horta gateway-gayga ma gaari karaa. waxaa ii soo baxday inaanan gaari karin oo wuxuu leeyahay host unreachable, macnaheedu ay tahay ma gaari kartid, waa halka destination-ka aad rabtay computer-kaaga ma gaari karo. marka haddii sidoo kale mar haddii aan gateway-gayga gaari karin, marka suuragal ma ahan in aad gaartid kali.org. suurtagal ma ahan oo internet connection mees. see lagu cilad bixinaa marka oo maxaa la sameynaa? step number 1 marka waxaad sameynaysaa troubleshooting ama cilad bixinta ayaad u istaagaysaa. waxaad baaraysaa computer-kaaga hostiga ah ama primary computer-ka in uu leeyahay internet connection, oo waxaad fiirinaysaa qaybta hoose icon-ka halka wireless-ka. waxaa laga yaabaa qaybtan kore inuu ku tusinayo inuu internet joogo, laakiin virtual machine maadaama aniga aan isticmaalayo virtual machine-ka internet-ka wuxuu kasii qaataa primary operating system-ka ama computer-ka primary-ga. marka primary operating system-ka fiiri inuu internet-ka ku joogo iyo in kale waa step number 1. okay, primary operating system-kayga ayaan u soo furay internet-ka. hadda internet connection-kayga wuu fiican yahay. waxaan tijaabinaynaa marka in marka aan internet-ka helnay ee ciladii ay naga tagtay ama in ay weli ay sii joogto iyo in kale. waxaan leenahay bing kali.org. waxaan ujeedaa hadda in uu destination-keena uu gaarayo. okay, mar haddii la gaarayo marka kali, it means hadda wax waa kasoo download gareysan karnaa oo waxaan leenahay apt update. sida hadda noo muuqato update-ka wuxuu u qaadanayaa si nadiif ah, cilad la-aan. waxaana arki doonaa ayadoo wax error ah ama wax warning ah uusan na siinin inuu dhameeyo. okay, sida hadda muuqato update-ka wuu dhameeyey, wax error ah ma jiro, wax cilad ah ma jiro. waxaan sameynaynaa marka hadda maadaama uu update uu yahay waxaan ku shubi karnaa file walbo aan u baahannahay. waxaan leenahay install, tusaale waxaa dhahdaa party. haddii hadda aan dhaho y, then installation-ka caadi uu dhameynaya. okay, hadda installation-ka wuu dhameeyey. sida muuqata marka haddii oo local machine-kaaga ama computer-kaaga Windows kugu jiro oo internet-ka uu ka go'an yahay, virtual machine-ka waxna ma soo dejin karo, waxna ma update gareyn karo. taas waa xalka koowaad in aad internet connection-ka local machine-kaaga aad fiirisid. xalka labaad
arinta labaad ee ciladaha keena xilliga installationka waxaa ka mid ah hadda aniga waxaan joogaa root user kaba soo qaad haddii aan joogo normal user waxyaabaha qaar oo aan installationka ku sameynayo error keena marka waa in aad hubisaa haddii waxyaabaha qaar markaad ku shubeysid installation ku sameynaysid waxaa laga yaabaa inuu ku dhaho waxa u baahan tahay permission uu ku soo calaamadeeyo inaad permission u baahan tahay uu ku dhaho permission denied ama wuxuu ku leeyahay root user oo kaliya ayaa sameyn kara marka xogta ku soo baxayso akhri kadib haddii uu ku dhaho permission denied ama xogta uu ku soo baxayso ay tahay waxaa lagu sameyn karaa as root oo kaliya hadduu ku dhaho waxaad u bedeshaa root user u bedel arinta kale saddexaad waxay tahay iska jir in aadan wax ka bedelin sources listiga ku jira APT-ga markii advanced packaging tool uu wax soo dejinayo sources listigan uu Kali Linux uu leeyahay wax ka soo akhriya marka sources listigana wuxuu ku jiraa haddaad fiirisid halkan uu ku jiraa filekan waa in aadan waxba ka bedelin haddii aad filekan wax ka bedeshid waxaa imaanaysa cilad in uusan advanced packaging tool uusan wax akhrin karin uusan halkan ka akhrin karin laana halkan waa linkiga ama pathka uu usii maro internetka si uu wax u soo dejiyo marka isku day in aadan wax ka bedelin oo kaliya waxaa la rabaa halkan linki oo halkan kaaga muuqata oo kaliya inuu active noqdo kuwa kaleeto waa comment ma ahan active maaha halkan link oo kaliya active ah haddii halkan marka uu yahay hash uu ku yahay oo kale waxa waaye hashka ka tir then active uu ku yahay haddii space aan dhaho hadda waxa ujeedaa inay isku mid ahayn marka isku day inaad spaceka ka soo qaadid oo ilaa ay gadaal ay keentid si uu active u noqdo hadaan dhaho marka control o aan hadda enter dhaho wuxuu leeyahay waxaa la qoray line 5 waxaa lagu qoray something control x waan ka baxay marka ayadan waa habka labaad oo wax lagu xalin karo habka saddexaad waxay tahay tusaale sources listigayga waa ii fiican yahay local machine-ka oo Windows-ka aniga oo primary ah internetkiisa iyo internetka virtual machine-ka way isku xiriirsan yihiin laakiin still error aan helayaa ama kaba soo qaad error ma helayo laakiin connection ma haysti marka cilada xagee ka jirtaa waxay ka jirtaa computerka waxaa laga yaabaa in internetkiisa localka computerka inuu fiican yahay laakiin virtual machine-ka in dhanka internetka uu ka heli la yahay network device-ka uu haysto virtual box-ka tusaale virtual box-kan Kali Linux network device-kiisa adapterka waa bridge adapter waay haddii bridge adapterkan hadda aan setting dhahdid oo network adapterka aad gashid waxaa laga yaabaa computerkayga adapterkiisa computerka aan ka hadlayo waa midka primary-ga ah oo Windows-ka aniga primary-ga ii ah adapterkiisa waa kan laakiin halkan adapter badanaa ku jiro make sure marka hubi in haddaa bridge aad dooratay in adapterkaaga uu yahay adapterka uu leeyahay Windows-ka primary-ga ku ah hadduu uu kan camal uu dooran yahay ima shaqeynayo virtual machine-kan internetkiisa ima shaqeynayo laakiin primary computerkayga oo Windows-ka ah internet waa ii jooga laakiin virtual box-ka adapterka aan doortay khaldan marka hubi in adapterkaaga uu yahay adapterka saxda ah uu leeyahay Windows-ka kaba soo qaad ma taqaanid ba adapterka uu leeyahay see ku hubinaysaa waxaa rabtaa inaad ogaatid adapterka saxda Windows-ka uu leeyahay waxaa imaanaysaa calaamada wireless oo Windows-ga right click dheh kadib waxaa taabataa open network connection then wifi taabo then hardware properties dheh then halkan uu kugu soo qoraya uu ku leeyahay adapterkaaga waa kana uu ku leeyahay Intel R dual brand wireless ACC wali way isla socdaan description-ka fiiri waaye adapterkaaga adiga 3168 kan hadda iska xiro kan fiiri waaye dual hello 3168 saasa ku ogaan kartaa in aad meesha ka soo fiirisid aad ku hubisid adapterka adiga isticmaalaysid haddii marka still adoo adapterka saxday oo bridge network uu ku yahay oo virtual machine-kaaga internetkiisa uusan shaqeyneynin maxaa sameynaysaa shut down the virtual machine-ka demi kadibna waxaa doorataa naadka dooro kadib waa goorme markaad demisid marka habkaas waa habka saddexaad oo lagu cilad bixiyo waxaan soo sheegnay in marka hore aad hubisid in physical machine-kaaga oo primary-ga ah inuu internet haysto internet inaa haysto in kale ka bilow cilada meesha ugu horeyso intaasoo dhan marka laga soo tago arinta ugu muhiimsan waxay tahay before inta aadan waxba ku shubin computerkaaga make sure in internet connection-kaaga uu stable yahay haddana sidaas oo kaleete update u dir root u bedel waxaa leedahay sudo su adoo root ah update internet connection-kaaga hubi inuu stable yahay uusan gogo-eynin kadibna update u dir mar allaala markaad update u dirtid kadib wax soo deji kadib wax walba sameey halkan waxaan kusoo koobaynaa sida ugu sahlan ee lagu xaliyo ciladaha ku aadan internet la'aanta iyo errorska ku imaada xilliga aad installation-ka sameynaysid inta aan muuqaalka xiga ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo